timid 60 jir aqas min 20 jir 60 jir waxaa jiro oo 20 jirka ka wanaagsan 20 jirka ka aqli badan 20 jirka ka wacan boqol anaga markaa maqalno gabaraa la dhibaatayaan bakasa xanuun badan bakasa jecel waxaa durba soo xasuusanaa ma wiil dhalinyara mise waa gabar dhalinyara 60 jir iyo wuxuu sameeyay dhamaysa fiidiyoga bilow ilaa dhamaad waana ku jeclahay soo dhawaada insha Allah walaalaha quruxda badan waa idin salaam waxaa idin leeyahay jimco wanaagsan jimco mubaaraka dhammaantiin meel walba adduunyada ka joogtaan kuwa cimri caafimaad oo wanaagsan waxaan idin rajeynayaa bashbashii barwaaqo iyo sida anigu caafimaad qabo dhammaantiin waxaa kala noqotiin soodka maanta jimco waa iska taqaanin dadka dhan xaafada iska joogan buuqis iyo saxmadiis marka dhammaantiin waa idin salaamay haddaan ugu cusub tahay soo dhawow qalbi ku jecelyihiinaysa fadaa hore ila joogtan waa mahadsantahay jasaakallah khayr walaalaha mar walba garabkayga taagan mar walbana midinka daali doono waxaad tihiin dad igu qaali ah walaala ilaahay dartiis u jeclahay waana mahadsantihiin sidaa mar walba ay sibad garaysaan garabkaygu taagan tihiin ay ii dhiirigelisaan oo haddaa i weysaan oo mar walba ay wareystaan waa mahadsantihiin anigana waa idin jeclahay waxaan idinku jeclahay ilaahay subxaanahu watacaala dartiisa allah idin xifdiyo anigana allah xifdiyo dhammaanteenana ilaahayna xifdiyo mar labaad iyo mar saddexaad karaala noqda buuqa waa dhalinyarada daaqadeeda gadaasheeda fadhiso marka karaala noqda hadduu buuq idin soo gaaro walaalahaygiyo waxaa xaabilaa insha allah inuu idin soo gaaro dhowr jara fiidiyoga stop dheer agsan ma dhihi karo intaan gabacda waan daalay waay dad oo meel fadhiyo ku baashaala waay walaalahaygiyo waxay noo hayaa maanta oo abaayno la soo wadaagtay gabar oo walaasheen ah oo ana qaasatan aad iyo aad ugu weyn qiso oo murugo badan oo aad iyo aad qiso oo murugo badan ilaahay ayadan ha u yasiro ilaahay waa u yasiro raagsan haddana ha u baarikeeyo ha u sii yasiro inta adduunyada ee rajo ay ka leedahayna ilaahay inoo waafajiyo idinkan usoo duceeya anigana iisoo duceeya waa isu soo duceynayna maantana waxay noo tahay jimco insha Allah jimcadana in laga faa'iideysto waa saacooyin oo ijaaba ku jiraan ilaahay khayrkaana waafajiyo dhammaanteena qof walba muraad leh oo macsaale ilaahna wada siiyo dhammaanteena muraadkeena muraadal muslimiin insha Allah dambigeena damb waalidkeenana Allah cafiyo meel walba ku sugantihiin ilaahay idinku barakeeyo ilaahay idinku xifdiyo idinka iyo awlaadiina iyo dhammaan qoysaskiinaba ilaahay idin wada barakeeyo dhammaan qisada waxay ku bilaabatay gabadhaaneyta sida u dhacday idinka sheekeynaya qisada waxay ku dhacday waxay ka dhacday horta dalka Yemen gabadhaan ku dhacday oo walaasheen ah gabadha waxay guursatay nin oday ah waxa arkaysaa marmarka qaarkiisa 20 jir iyo 60 jir isku aqli ah oo 20 jirka aqligiisa aad u badan yahay maanta marka aragtaan qiso xanuun badan ba qiso jecel durba qalbigaaga waxa soo dhacay wiil dhalinyaro ah gabadhaas xumeeyay amba gabar dhalinyaro ah qofkaas xumeeyay salaasan dhalinyarada kalgooda ma qaldoom horta waa Allah subhanahu wa ta'ala bini aadan uu qaldoom anaga basharan nahay waxaan nahay bini aadan dhanna qalad buu ka sameeyay raasay in laga toobad keeno allo baahan waa ilaahay adoonka shabaabkiisa yar kan oo toobad keeno jecel yahay ilaahna naga dhigo kuwa toobada ku dhintay insha Allah oo ilaahay gafkeeni garadana nama kulmi insha Allah gabadhan qisada waxay ku bilaabatay Yemen ay joogtay Yemen markay joogtay waa iska taqaani qof markii oo qof kale oo Sacuudiga markuu u sii socday Yemen waa taqaani markii la siyaada Sacuudiga baa laga aada dadne qof wada inay waayaan un meesha iska joogan dadne maxaa la lahaa shaqo xuduudadii meelaha ka shaqeystaan gabadha meesha bixin nasiib wanaag waxay ku hakatay dalka Yemen markay ku hakatay wiil waxay iska barteen qadka oo telefoonka ah internet ma ahan hadaba iyadoo Sacuudiga joogtay iska barteen telefoonka caadiga oday iska barteen odayga way sheekaysanayeen muddo sanad ah markay sheekaysanayeen gabadha waa la soo tarxiilay iyagoo is arkin waayo gobol ay ka shaqeynaysa gabadha waa la soo tarxiilay Soomaaliya imaatay Soomaaliya kumay daahin way baxday Yemen ay tagtay Yemen markay tagtay odaygana wuxuu dhashtay Yemen iyo Soomaaliya iska dhaleen Yemen iyo Soomaaliya iska dhaleen wuxuu dhahay okay Yemen asaga halaas dhan lacagta ka soo dhiibay soo gelinaya Yemen markay maad u dhahay ha soo gudbin aniga Yemen u soo socdo Sacuudiga ha soo gudbin ku sugnaa Yemen ku aqal galinay okay Yementii gabadhii markuu wuxuu dhahay reeriisa Yemen joogan marka guriyana way ku leeyihiin gabadhan dad asxaabteeda la joogtay wiilkii odaygii markuu wuxuu sameeyay gabadhii asxaabteeda markay la joogtay wuu yimiday markuu yimiday isla habeenkii soo yimiday habeenkeeda kale gabadhii wuu yimiday wuuna kiciyay wuxuu geeyay guriga oo reerkooda ah oo isaga cidiisa ah oo geeyay markuu geeyay gabadhii wuu mehersaday
isla durbadii wuu mehersaday ehelkeeda la hadlay wuu mehersaday ninkan xaas ayaa u maqan oo dalka oo ingiriiska ugu maqan sorry ma wadanka ay soo fakaday marka banaanka ugu maqan tahay xaaskiisa weyn xaaskiisa marka maxaa la sheekay meeshaas ugu maqan dacwad u furaysa xaaskana waxa uu dhashay wiil kalena hore u leeyahay iyo gabar kale hore oo asaga u dhalay jirtay kaasna gabadhii fara lagu mahayo hooyadeeda oo ayadoo uur leh kala tageen waxa kaasna gabar inuu qabo oo dhalay way uu og yahay oo uu la hadlaa ragsan oo nacam wadanka ugu lama sugno amba isku meel kuma sugno oo gabadhiisa wiligiisa muusa arkin raasna hadal baa ka dhaxeeya marka waxaa dhacday gabadhii wuu mehersaday markuu mehersaday walaalihiis raali ugumaan oo gabadhan meesha rabin inuu guursado almuhiim waxaa dhacday ninkii markuu mehersaday gabadhii maalmo kadib wuxuu dhahay sacuudiga noqonaa alaabtan gaarinaya waxaana soo iibinaya waa soo noqonaya meeshaan reerkeyga la sii joog yamana ogtiin dagaalaa ka bilowda mahno reerkeygana maxaa la lahay sheeg la sii joog ha bixin marka aniga oo inta imaado oo soo noqdo oo wax nolosha wada qaadano oo anigana aa baxo adigana sacuudi markaasaa kuu diraya insha allah markaa baxo oo meesha u socda aa gaarane ani kule xaasa ii dacwoonayso adigana wadan kale kaaga dacwoo doonaa insha allah waxaa dhacday alaab oo watay oo xaaskiisa kale u watay oo banaanka jirta alaab oo usoo gaday ayaa jirtay walaalihiisa marka waa waxay ahaayeen walaalo oo fiicneen gabadhii waxay ku dhaheen mataqaanaa maxaa la alaabtaneet wiilkeyga ayaa xadaye mana ku nabi karay maadaama adiga marka gabadha aabeedna marka kasto adiga dhibaato miya maqaana waxaa lagu lalahaa deen iyo marka waa la xiray maadaama aabaha dhibaato ku jiro oo dhanka familkaagana waxba ay haysanin oo reerkaagana hooyadaada ma xanuunsan hooyadeedna kastoo way ka xanuunsantahay alaabta anaa gato u baahda ku dheh ani wiilkayga xada iyo astur gabadha waxay tiri macquul maaha ninkan haddaa isguursanay waana isku cusubnahay mana dhihi karo mana awoodi kari sidaas miaha okay waayo gabadhan wiilka iyo odagan telefoon unba iska yaqaanay aqoon kale iskuma lahan okay dheheen alaabtii sida way dabari waa anaa dabaraya tiri hooyadii marka alaabtii meesha dabarina way dabari wayso alaab badan oo wiilkeeda xaday maxaa la lahaa isha gabadhiina mees u sheegin ninkeeda waxaa laga rabaa qofka bini'aadamka taa inaa qofka raasa marka caruurnimana ku hayso oo dhalinyaranimo ku hayso oo axyaanin oo qofkii aad la joogtid lagugu ammaaneyni adigana dhinacna malabkaaga ah dhinacna sibirkaaga ah adduunyada ilaahay taasaa ugu xun waxaa dhacday ninkii wuu soo noqoyay markuu soo noqoyay waxaa la lahaa alaabta xaaskaaga ayaa gadatay waa aabaheed oo la xiray hooyadeeda xanuunsaneeday alaabta iidaa gadatay ninkan muxuu gabadhii ka fahmay qalad way ku tashiireen habeenkuu soo noqoyay ayay ku tashiileen asaga gabadhii wax muu u sheegin habeenkii qolkaluu ka seexday wooba xanaaqsee maxaa kugu dhacay xabiib maxaa ku daaray may ma wax maahan kristaroolka ay u kacsan kristaroolka ma kugu kacsanaa waayaha gabadhii marka tugan baa kugu taagan adiga dadkii shuxshuxday ay haayaan nacam fur la leeyahay gabadhina already walacay noqotay wuxuu dhahay khalaas meherkaaga waa kana iska bax sacuudiga aad maxaa la lahaa isheeg iyo meesha u socotay lacagta waa kana gabadhina dalaaqna moo dhihin waxna moo dhihin haye waayahay خلاص إلى ماشي وجهك واحد ما تقبل ويا بحذي لعقت المهرك إسك قاعدتي هليه مهر كذا هاي ويكسر تقطي مركي كسر تقطي ميل أو أصحابتي أول إلى جوقتي أو أوتي مذي بحيث هيوان بحربها أوكي بقارية صارين مقالة عاصمة أو لبعض عدن إمارتي عدن مركي إمارة قبل صفر كذا سيداسي كسر لما استرتي مركي أنت استغفر لها marka intayn soo cada markay timiday ayaa ninkii ma soo wacaayo intaan soo maraysa hataa ma tagtay ma nabad tagtay meesha u socotay ma dhiilan telefoonkii ma xirmaayo mogtahay ma soo waceynin way wacd hataa ma soo waceysid miya dagaala socdo ana oo sharci aan haysanin ku soo baxay wadadaas iyo tahriib 3 maalmood wadada gaariga baska soo waday ma soo wacin miya may waa maanta bixisa ku dalaaqa aniga waaye waa ka ani hadina uur leh in kala ma garanayo kasto waxaan xanuuna dareema hadaa wax dhishid insha Allah waa ila soo xiriiri doontaa uu soo gabagabay gabadhi walaashayna qisas murugada badan ku dhacday gabadhi marka oo gabar ay u dhashay warkii adinka dhaxgalin qisada way dheertaa naftiga marka hadalka dheer yahay ku laqabad ma igraad noqda gabadhi waxa ku dhacday uur ay qaaday uurkii qaaday ninkii waxa uu dhashay gabar
gabar ayaa u dhashay ninkii taa laa cirib laa jaan laa ehelkiisa waa la wada qaxay ayagana banaankii u wada guureen guryahooda nacam gabadhii mar kale hataa la qabtay yamanay soo martay way sareerkaas way bixeen allahay gabadhii ay dhashay way ka saqiirtay marka dambe ayadoo 7 sano jirtay ka saqiirtay ninkaasayta wallahi magaciisa daal wadaagay Sacuudi badan way ka saayeen laasan ma loo baahna waa qof bilaa damiir ah bilaa naxariis ah waa 60 jir oo nacam u dhaqmay aqas min 20 jir ayaa dhihi karaa 60 jir u dhaqmay aqas min 20 jir waayo 60 jir waxa waayo awoowe waa aabe waa abuulan oo gaaro wiilkiisa wiil oo dhala wiil kala sii dhali karaa waa 3 facoo jira markii noocaas oo kale ku dhaqma ma ahayn gabadha marka guur oo dhan ay nacday waxay nacday mustaqbal oo dhan ay nacday waxay nacday nolosheeda oo dhan laana qof walba wuxuu leeyahay cunugtaada waxam aaba ma lahan cunugtaada waxam ma lahan cunugtaada waxam ma lahan waayo qofku wuxuu dareemi karaa wuxuu dareemayaa uqdad wuxuu dareemay aniga qofka aadin ka sheekeenooyo maahan qof oo qisada bis un iiga sheekeeyay qisada kala barkeeda hata un wax baa kala socday oo cunugtaas hata dadkii oo markaas oo musaacadada ka qayb qaatay waan ku jiray ma fahanteen marka walaalahaygiyo qisadaas jeclaystay idin wixii tiray walaalahayga uu sheekay maadaama walaasheeda ay YouTube-ka leedahay dhowr jeer ah qisada ma ka sheekeynaa qisooyinkaas qisada la mid ah waa idin haynaa insha Allah qisadu way si dheer tahay raas waa la bakmay hadalka kale aan ku hadli karin ayaa ku jiro marka intaas ku soo gabagabeynaya